raxmaan raxiim kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka kulanka toddobaadka oo xilligan oo kale aad la socotaan toddobaad kasta waxaana barnaamijkeena ku falanqeynaa mid ka mid a dhacdooyinka waaweyn ee dalka ka taagan toddobaadka haddii allah wadale uu qadaro toddobaadkan barnaamijkeena mowduuciisa waxa uu la xiriiraa ama uu ku saabsan yahay hindis sharciyeedka ee doorashooyinka qaranka ee golaha wasiirada xukuumadda federaalk ee soomaaliya ay ansixiyeen dhowaan haddaba hindisahaasi iyo ahmiyadda uu leeyahay dalka ayuu barnaamijkeena ku saabsan yahay ama hindis sharciyeedkaasi iyo ahmiyadda uu leeyahay dalka iyo guud ahaan doorashooyinka la filayo in sanadka 2020 ay ka dhacaan Soomaaliya waxaana barnaamijka kala qaybgalaya gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka Xaleeme Ismaaciil Ibraahim Xaleeme Yarey iyo sidoo kale la taliyaha arrimaha dhinaca shuruucda ee guddiga doorashooyinka Mudane Cali Maxamed Maxamuud ayaa barnaamijka labadaba igala qaybgalaya barnaamijka sidoo kale inta uu socdo daawadayaashii dhageystayaasha waxa ay nagala socon karaan baraheena bulshada dhinaca taleefanadana toos bay naga soo wici doonaan iyaga oo su'aalo iyo talooyin ku aadan sharciga doorashooyinka qarankaana soo weydiin doona marka koowaad waxaan rabaa inaan soo dhaweeyo martida barnaamijka oo ku soo dhaweynaya barnaamijka kulanka toddobaadka gudoomiye waa mahadsantahay waa tahay ustaad cali adigana waa kusoo dhaweynaya barnaamijkeena gudaha u galeynaa marka koowaad waxaan rabaa inaan ku bilaabo gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka bal gudoomiye marka hore waxaad sharaxaad guud naga siisaa sharciga doorashooyinka oo aan ognahay ahmiyadda uu leeyahay dalka iyo sida loo sugayay bal marxaladaha uu soo maray marka koowaad ee dhinaca diyaarintiisa waa mahadsantahay bismillaahi raxmaani raxiim waxaan salaamayaa ummadda soomaaliyeed oo meel kasta ka joogta adduunka oo na dhageysanaysa waxaan usoo dirayaa salaan sharaf leh waxaan ugu hambalyeynayaa bisha ramadaan ee fooda nagu hayso ilaahay ha naga dhiga kuwii cibaadadaas sida ugu habboon u guta noona fududeeya roobna nookee ilaahay inuu roobna siiyo aada magaalada xamar ee u kulushahay iyo soomaaliya oo dhanba daafaheeda haddaa fiirsid oo aada kuleel uga jiraa marka rabbi hana soo qaboojiyo aan soo wada duceysano aada iyo aadaan u fiicannahay maanta waxaan ka hadlaynaa sharciga doorashooyinkaa tiri sharciga doorashooyinka horta sida loo diyaariyey iyo qabanqaabadiisa iyo siduu yahay iyo dastuurku sida uu faraayo dastuurkeena qaranka sharciga waxaa soo unki kara oo soo curin kara golaha wasiirada wasaaraddii markaas ay qusayso sharci oo dhan kadibna golaha wasiirada ansixiya kadibna baarlamaanka ansixiya baarlamaanka ah hay-adda sharci dejinta oo wadankan sharciga u soo saarta ayadaa ah halkaasuuna soo maray waxayna ku habboon tahay meeshuu soo maray iyo siduu ahaa iyo heerka uu soo gaaray in aan ka wareysano muxuu ahaa cali xareed alxamdulilah oo hadda ay ag fadhiyo oo ah guddoomiyihii guddigii soo qabiyo qoraalka kusoo sameeyey sharcigan aniga waxaan kasoo gelaynaa keliya sharcigaas markii naloo keeno sida aan ugu shaqeynayno iyo sida uu yahay aad baad mahadsantaa waa gudoomiyey ustaad cali maxamed maxamuud la taliyaha dhinaca sharciga ee guddiga doorashooyinka bal isla arrintan marxaladaha uu soo maray iyo marxaladda maanta uu taagan yahay ee kusoo aaday sharciga doorashooyinka waa mahadsan tahay horta sharciga doorashooyinka wuxuu si rasmi u bilowday bishii March 2017 waxaana bilowday wasaaradda arrimaha gudaha tiim bay u samaysay koox sharciga ka soo shaqeysa bishii November 11keedii baa la dhameeyey oo loo gudbiyey golaha wasiirada prime ministerku markaa wuxuu arkay in xoogaa la tashiyo intaan golaha la marsiin loo baahan yahay kabacdina sidaad la socoto shalay oo bishu ahayd 2 May ayaa golaha wasiiradu ansixiyeen marka sida nidaamku yahay waxaa u dhiman baarlamaanka in la geeyo baarlamaanku ansixiyo kabacdina madaxweynuhu saxiixo kabacdina guddiga sharciga la siiyo si ay ugu shaqeeyaan waayo sharciga waxaa ku xiran intaas oo xeer hoosaadyo oo ay tahay in laga sameeyo oo doorashada lagu maamulo waayahay aad baad mahadsan tahay ustaad cali gudoomiyaha guddiga doorashooyinka haddii aan kusoo laabto ahmiyadda uu leeyahay sharcigan markaad u fiirisid meelaha qaar hadda waxaad moodaa in
maamul goboleedyada iyo dadka laftigooda daneynaya xisbiyada ee dhinaca siyaasadda in wadatashiyadii sharciga lagu soo diyaariyey in sidii loogu talagala aan ahayn, bal arrintaas ka waran. bismi illaahi raxmaani raxiim. sharciga habuu soo maray oo lagu diyaariyey. waxaan fiicnaan lahayd cali inuu kasoo bilaabo meeshii uu kasoo bilaabay iyo meeshuu ku dhammaaday. annaka guddi doorasho ahaan waxaan sugaynaa waxaa waaye sharci. golaha wasiirada hadda waa hab uu soo maray. sharci wuxuu noqonayaa markuu baarlamaanka tago oo baarlamaanku ansixiyaan, madaxweynahan uu dekreeto kusoo saaro. markaas oo annaga gacanteena soo galaan ka hadli karnaa oon ku shaqeyn karnaa. laakiin inta ka horeysa waxaa waaye waxaan daba taagnaanaynaa in sharcigii waa codsanaynaa si aan u shaqeyno sharcigii hanala sii, maadaama sharcigan uu yahay hooyada muxuu ahay hoyga doorashadaba uu yahay. la-aantiis aan doorasho la qaban karin. guddiga la-aantiis doorasho lama qaban karo. guddigana hadduusan sharciga haysanin uu raacahay doorasho lama qaban karo. annaga marka waxaa nahay sugayaasha sharciga. waa arinta shaqada noo furfuraysa waay. laakiin waxa ku dhigan iyo sida loogu shaqeynayo iyo muxuu ahaay cidda ansixinaysa iyo meesha uu soo marayo iyo maalintii cali looga dhigay guddigan guddoomiye meeshay ka bilaabeen, wuxuu wadatashi soo maray, wuxuu qubaro soo maray, wuxuu dad soo maray. waxaan jeclaan lahaa cali inuu si fiican arrintaas uga hadlo. aniga liiga duwa ani sharcigaasaan sugooyaa ani sharci sugaa ahay ilaa baarlamaanka soo maro ilaa sharcina la yiraahdo waa kana sharcigii doorashada ummadda Soomaaliyeed lagu dhaqaayo. markaasaa annaka aan shaqeynayna Ustaad Cali Maxamed Maxamuud, bal waxaad naga warantaa maxaa ku xiran sharciga doorashooyinka oo muhiim ah ama shuruuc ha ahaato waxyaabaha ku xiran. okay, waa mahadsanid. horta dadweynuhu waxay u baahan yihiin inay fahmaan sharciga iyo noocyadiisa kala duwan. markii naloo xil saaray sharcigan aan samayno, kooxdii sharciga loo xil saaray meeshaan isugu nimi waxaanu miiska soo saarnay duruufaha dalka haysta oo aanu xabad xabad u kala dhigdhignay. arrimaha nabadgelyo, arrimaha siyaasadeed, arrimaha dhaqaale, dhinac kasta waxaa jira sharci markii la samaynayo nooc doorasho iyo nooc degaan doorasho ayaa jira. nidaamyadaasuna ma aha midaan annaga iska hindisnaya, waxa weeye nidaamyo lagu soo dhaqmay oo dowladda inala mid ah ay ku soo dhaqmeen oo inala xaalad ah. noocyada doorasho 3 baa ugu waaweyn. nooc waxa weeye midka qofkii ugu codbataa uu qaato kursiga. maalan 4 qof aa tartamay, qof baa wuxuu helay 32% dadkii codeeyey, inta kaleetana waa ka yaraadeen. waxaa kursiga qaadanaya qofkii 32 helay. qaabna waxa weeye qaabkan la yiraahdo nidaamka saamiga siman proportional representation oo ah inta dadka codeeyey intaad ka hesho ayaad kuraasna ka helaysaa. marka qofkii helay 32 kuraasta wuxuu ka helayaa 32, qofkii helay 30 kuraasta wuxuu ka helayaa 30, 30% qofkii helay. wuxuuna ku dhisan yahay kuraas badan oo ama degmo la dhigo ama gobol la dhigo ama dowlad goboleed la dhigo ama waddanka oo dhan la dhigo. markaan la tashanay khubaro Soomaaliya, khubaro ajnabiya, adduunyadana aragnay wixii mataqaan asay ku soo dhaqmeen, waxaanu kula talinay madaxda siyaasiyiinta inay qaataan, waanu soo jeedinay nidaamkan la yiraahdo saamiga siman proportional representation. waayo nidaamka keliya oo na anfacaya waa sidaa. degaan doorashadana waxaa la sameeyaa nidaamka inta ka bixin nidaamka qaax nidaamkaas waa nooc nidaamyadaas mid waa kuu sheegaya waxa weeye kuraasta qofkii qaadanaya qofkii uu codbataa qaata. midna waxa weeye midkan proportionalkana waxa weeye xisbiyaa tartamaya, liis baa la samaynaya. doorashada intaan la gelin baa xisbi walba liis samaysanaya isu dheelitiran. xisbigu wuxuu rabaa inuu doorasho helo, xisbigii wuxuu rabaa inuu galmudug ka helo, puntland ka helo, meel kasta ka helo, meesha laga codeynayaba uu dadka ka helo rabaa. marka xisbiga dantiisa ku jirtaa in dadka la soo sharaxay ay yihiin dad gobolla
gobollada ka kala yimi oo aan isku reer ahayn. liiska markii la sameeyo waxaa la yidhahdaa liiska xiran. liiskaas waxaa loo keenayaa guddigu waa eegayaan oo waxay ka eegayaan shuruudihii liiska ayay ka eegayaan. markay eegaan waa la isla garanaya, waa la isla qaadanaya, kabacdi baa liiskaas meel la dhigaya, doorashaa la aadaya. ka soo qaad xisbi e wuxuu helay 50% dadka codeeyey. hadday 3 milyan codeyso, hadday 4 milyan codeyso, wuxuu helay 50%. kuraasta loo tartamayo wuxuu ka helayaa 50%. oo inaga markii loo soo noqdo xaaladeenna 275 50% waxay noqonaysaa 138. guddigu marka liiskii way soo saarayaan, liiskii baa 1 ilaa 138 xisbigu sidaa. marka waa nidaam sahlan, liisku derbigu ku yaalaa, xisbiyaa loo codaynayaa, wuxuuna kaloo ku fiican yahay nidaamkaas. nabadgelyadu saameyn badan kuma leh, waayo waxaa laga codaynayaa meeshii laga codayn karo. inaad xuduudayso uma baahna oo aad dowlad goboleedkan ama degmadan kee ka tirsan tahay inaad tirahdo uma baahna. meesha laga codayn karo laga codaynaya, xisbigu intuu cod helaa la isugu darayaa. markii la isugu daro 100% intuu ka helo min gees ilaa gees Soomaaliya intuu ka helo, warqadda codayntuna waxay noqonaysaa warqad yar oo intaa la eg oo xisbiga magaciisa ku yaallo iyo calaamadiisa iyo meeshii looga codaynayo. intaa markay dhacdo waa sahlan yahay, dad badan baa codaynaya. xoogaa halka dib uu leeyahay waxa weeye, dadka qaarkood waxay yidhahdaan maadaama liis uu yahay, xisbina loo codaynayo, uma dhowa dadweynihii dadka wax dooranaya, xiriirka ka dhexeeya qofka wax dooranaya, dadkii qof ma dooranayaan, xisbay dooranayaan. laakiin wuxuu leeyahay faa'iidooyin aan la koobi karin. nabadgelyada dhib kuma aha, dadka waxaa codaynaya intii mataqaanaa isdiiwaan gelisay waa codaynaysa. guddigu sanadka soo socda horaantiisa markay diiwaangelinta bilaabaan, qof kasta oo isdiiwaan geliyey ayaa codaynaya. dadka waxaa laga diiwaan gelinaya meeshii nabada, waxaa laga codaynayaa meeshii nabada laga codayn karo. macne ma samaynayso haddii xisbigu dad badan ka helay gobol ama degmo, dad yarna ka helay, macne ma samaynayso, ma saameynayso sida kursiga loo kala qaadanayo. xisbigii baa la isugu darayaa, intuu helay baa loo sameynaya. marka kaas nooca saddexaad waxa weeye nooc isku dhafa oo nidaamkan aan kuu sheegayo proportionalka ah iyo isugu jira kii hore aan kuu sheegay oo ahaa qofkii ugu codbato qaado. nidaamka waa nidaam adag aan laga bixi karin. dadku waa inay aqoon badan leeyihiin, waa inay leeyihiin taariikh doorasho ay soo mareen. marka kaasna ma qaadan karaan. marka inaga siyaasi ahaan in go-aan looga gaaray ahayd. nasiib wanaag 5 Juun sanadkiina soo dhaafay 2018 ayaa madaxda qaranku waxay isugu tageen Baydhabo, go-aankaasay gaareen. nidaamka proportionalkana waa la qaatay, kan dalka oo dhan inay single constituency noqotona waa la qaatay. constituency-kuna haddaad ii ogolaato waa sharaxaya nooca constituency. marka hadda sharciga meeqa nooc baa ku taalla oo doorasho, meeqa ayuu ogolaanayaa sharciga hadda ku taalla? sharciganu maxaa tiri meeqa nooc, macnaha noocyada aad sheegtay doorashada hadda meeqo noo ogolaanayaa? midka liiska xiran, nooc kale oo kan siman baa ka hadashay, ma nooc saddexaadaa jiro oo kale? 3 nooc weeye. noocaan kuu sheegay oo ah oo Maraykanka laga isticmaalo iyo oo ah qofkii ugu codbato qaado. noocna waa noocaan isku dhafan, waa fahmay. noocna waa noocaan proportionalka ah. ka proportionalka waa inagu qaadan, macnaha sharciga kaas keliya ku taalla. ka kaliya ku taalla. waayahay kan qaybta deegaanka waxaa kuu soo hartay degaan waa laga dhigi karaa, degaan doorasho. gobol waa laga dhigi karaa, dowlad goboleed waa laga dhigi karaa, qarankana waa laga dhigi karaa. degmo haddii la laga dhigo waa inaad taqaanaa dadka ku tirsaya. degma A intee kursi siinaysa, degma B intee kursi siinaysa, waa inaad dadka taqaanaa. innaga dadkeenu ma tirsanaa. gobolna waa la mid. waxaa kuu soo hartay in kuraasta la dhigo dowlad goboleed iyo in la dhigo dalka la dhigo. arrintaa go-aan waa laga gaaray, laakiin haddii xataa doodi ka timaado oo dad yidhaahdaan waxaan rabnaa in dowlad goboleed la dhigo, waa in laga jawaabaa dhowr su-aalood. Somaliland see laga yeelayaa? kuraasta 275 sidee loogu qaybinayaa 5 dowlad goboleed, gobolka Banaadir iyo Somaliland see loogu qaybinayaa? waa inaa qaybisaa. barakacayaasha see laga yeelayaa? barakacayaal gobol degan
oo gobol kale ka yimi ma waxay u codaynayaan maadaama dowlad goboleedkii lagu saleeyey doorashada ma waxay u codaynayaan gobolkay joogaan mise waxay u codaynayaan gobolkay ka yimaadeen arrintaasna waxay keeni kartaa dhibaato keeni kartaa waxaa kaloo dhibaato keeni kara xuduudaha laysku haysta degmooyin laysku haysta degmooyinkaas see loo maxaa laga yeelaya marka dhibaatooyin aad u fara badan xamar banaadir arrinteedii oo laalan oo weli aan maqaamkeedii go-aan laga gaadhin laakiin dad malaayiin ay ku nool yihiin ma waxaa leeyahay waxba lihidin waa in kuraasta ay qayb ka helaan weliba qayb wax ka helaan marka caqabado waaweyn baa jira meelaha aan laga codayn karin nabadgelyo darteed maxaa la samaynaya gobolada dowlad goboleedyada degmooyin fara badan aan nabadgelyo darteed laga codayn karin maxaa la samaynaya tan dalka oo dhan la dhigaa waxay ku fiican tahay intii codaysa haddii degmadaan laga codayn karo lakin ta ku xigtaa laga codayn karin degmadaan laga codaynayaa dadka inta codaysaa dadka matalaysa dadku marka dad baa waxay weydiiyaan waxay yidhaahdaan hadda dadka haddayna wada codayn karin maxaa dhacaya adduunyada waxaa dhacda 30% baa meelaha qaarkood dadka usoo baxa dowladaha dimuqraadiga intaasoo sano kusoo dhaqmaayay doorashooyinka 30% ama 60% ama 100% wax yar baa soo baxaya intaa yar baa waxay matalaysaa dadka intiisa kale innaga hadday 3 milyan codayso oo isdiiwaan geliso oo codayso oo la yidhaahdo qofka isdiiwaan geliyay baa codaynaya wuxuu ka codaynayaa qofka markii la diiwaan gelinayo waxaa loo sheegayaa halkaasaa ka codaynaysa midda kale sharciga markii lasoo dhammaystiro oo guddiga loo keeno waxaa jira intaasoo xeer hoosaad baa laga samaynaya fasiraada oo saasaa la samaynaya saasaa la samaynaya marka degaan doorashada waxa ugu fiican waxa weeye deegaanka dalka oo kuraasta oo la dhigo 235 dalka oo dhan aad baa ku faahfaahsan sida u faahfaahsan maasanta gudoomiyaha guddiga doorashooyinka oo soo laabtay gudoomiye hadda sida ustaad cali noo sharaxay sharcigii waa diyaar golaha wasiirada waa ansixiyeen baarlamaanku sugaya waa sax guddiga doorashooyinka idinka maxaa kaga muuqda sharcigaas bismillaahi raxmaani raxiim sharciga hadda sharciga weli ma dhowa golaha wasiirada oo runtii aan aada ugu eedeynayno oo aada ugu haysanay oo dood badan aan kala sameynay prime ministerka aan dhowr jeer kala kulannay oon lahayn maxaa ku dhegan sharciga doorashooyinka muddo ka horaa la idiin soo gudbiyey maxay u suura gali la-dahay in ay u gudubto inaad iska soo gudbisiin alxamdulilah shalay iska soo gudbiyeen waana ku mahadsan yihiin aadaan uga mahad celinaynaa waxaynana gelinaysaa yidadiilo in doorasho la qaban karo waxaad ku dhawaaqday oo aad tiri dowlad goboleedyo iyo shakhsiyaad xisbiyaal ahaa ka hadleen hadiiba wax aan laga hadlin ma jiro wax aan laga hadlinna maba fiicnaadaan mana hagaagaan waxaan aaminsanahay siduu yahay in laga hadli doono meelna wax la wada dhigan doono baarlamaankuna uu ka hadli doono hadduu anfaco iyo haddii kale shaqo dheer uu soo maray shaqada dheer uu soo maray waxay ahayd khubaro badan oo aqoon u leh doorashooyinka runtii aad dadka wax u baray cali xareed wuxuu ahaa guddoomiyihii guddigaas sharciga iskuma uu koobina runtii markii dad badanaa lagu daray dadkaas badan oo ka kala socday hay-ado badan oo dowladda ah ka kala socday markaaseyto kadibna xisbiyadii isdiiwaan geliyey oo dhan loo bandhigay oo ayagana arkay international community-ga ayaga naftooda ka keeneen talooyin ka keeneen oo talooyinkooda uu ku jiraa ururada bulshada oo gobolladoo dhan iyo dowlad goboleedyadoo dhan laga keenay ayagana waa loo bandhigay welina un waxaa waaye talow un ku jiraaho haddana madaxda waa is arki doontaa waa ka wada hadli doonaan muxuu u yahay marka guddiga doorashada horta guddigu asaga wuxuu ka shaqeeyaa arrimaha farsamada oo doorasho sidii loo qaban lahaay ah aan diyaarinaa midba mid jaranjaro waaye oo marba qeybaan diyaarinaa oon ku soconnaa hadda waxaan soo gaarnay qeybtii ahayd inaan bulshadu wacyigelino wixii lagu wacyigelinayo dhan kurukulumkii iyo nidaamkii lagu wacyigelinayoba uu noo diyaarsan yahay iyo in aan soo calaamayno goobihii lagu codbixin lahaa oo hadda noqonayso goobihii dadka lagu diiwaan gelin lahaa
inaan gobollada iyo degmooyinka oo dhan tagno oo wixii goob ahayd aan tagno oo bishaanba ay ugu horeyso soonqaadka hadda la gelayo aan aadayno gobolladii iyo degmooyinkii oon soo calaameyno markaan soo calaameyno kadib haddana sanadka horaantiisa 2000 inaan bilaabno diiwaangelintii shalay oo aan ugu dambeysay waxaan la shirnay hay-adaha caalamiga ah oo runtii aada nooga u daba taagnaa sharcigan aada u daba taagnaa oo wax kasta nooga xiraya sharciga caawo sharcigana soo baxay oo shalay markii aan meesha tagnaba ayaga ay noogu hambalyeynayeen sharciga inuu soo baxay hadda waa shaqayn kartiin shaqadiinana waa wadan kartiin ee u ekaad waxaan kusoo heshiinay annakii iyo ayakii oon usoo bandhignay go-aankii aan gaarnay oo ahaa dadka goobaha sida looga codbixinayo dadka sida loo diiwaangelinayo codbixinta diiwaangelinta qalabkii loo baahnaa oo diiwaangelinta looga baahnaa oon soo qoranay sida uu yahay iyo habka uu yahay aan shalay usoo bandhignay waana noo ansixiyeen waa nala qaateen marka anaga shaqadaasaan ku soconaa sharciga marka muxuu muhim noogu yahay wax kasta oo doorasho waa inay sharci ku tiirsan tahay ay sharci ku fadhidaan sharciga marka laba u qaybsamaa qayb generaal ah oo international ah oo adduunka oo dhan looga dhaqmo oo la fulin karo intuu ka soo baxay asaga aan sharciyo hoose u samaysan karno oo aan dhammaysan karno oo ah see dadka loo wacyigeliyaa wixii dadka lagu wacyigelinayo maxay yihiin kurukulumka siduu yahay see u dooranaa muxuu ahay qalabka oo dadka lagu diiwaangelinayo arrimahaasoo dhan waxaa arrimo aan ka shaqaynayn oo aan ognahay sharciga noocuu noqdaba inay ku soo baxayaan sidaas inay ugu soo baxayaan iyo arrimo gaar ah oo ay tahay aanaan taaban karin annagoo aanaan sharciga haysanin oo xeer hoosaadkii aanaan ka samaynin sida haddii lagu heshiiyo nooca doorashada oo noqdo xeer hoosaad gaarahu yeelanaa noocaas doorashada xisbiyadu siday u dhaqmayaan nooc gaarahu noqonaya doorashada sida loo galayo nooc gaarahu noqonaya annaga saan u shaqaynayno nooc gaarahu noqonaya xafiisyadeena gobollada iyo degmooyinka aan ka furnay see u shaqaynayaan nooc gaarahay noqonayaan oo asaga kasoo farcamaya arrimo badan oo saas ah shuruuc badan oo sharci hoosaad ah oo xeerar ah oo sharcigan ah kasoo hoosbaxa waxaa la dhahaya sharciga xisbiyadana waa la ansixiyey sharciga xisbiyada lama ansixinina sharciga xisbiyada wuu jiray mar horaa la ansixiyey baarlamaankii 9aadaana ansixiyey madaxweyne xashan siiqna dekreetadiisa u saxiixo wuu jiray laakiin meelo yaroo waxaa jireen isdhaaf ahaa sida waxaa markii qodob laga hadlo waxaa saas iyo saas iyo saasaa loo sameynaa adigoo raacaya dastuurka qodobkiisaas dastuurkii markaad tagtid oo qodobkii aa fiirisid isma laha waxaa laga hadlaya ee qodobkaas la sheegay wuu qaldan yahay meel kalaha isma waafaqsana meel kale wuu ka hadlayaa saxitaan saas oo kale iyo hal meelo ugu weyneed oo dhahayso xisbiga waa inuu haystaa 10,000 gobollada waa inuu ka haystaa 9 gobol oo ka mid ah 18 gobol 91 waa inuu ka haystaa 10,000 oo codbixiye oo diiwaan gashan codbixiyanimo u diiwaan gashan annakana weli codbixiyihii ma aanan diiwaan gelin haddii la yidhaha xisbiyadaha laga sugana marka codbixiyihii diiwaangelinta waxay waqtigay qaadanaysaa haddii loo daayo oo loo fasaxana waxay noqonaysaa 9 xisbi inay yimaadaan shuruudda keliya xisbiyada lagu xakameynayo midaasay ahayd oo lagu yareynayo xisbiyada inaysan baahin ay tirada ka badanin taasaa marka iyadoo sharciga sidiisii loo daayay hoos waxaa lagu qoray haddii guddiga doorashada uu u suurageli weysa inuu dadka diiwaan geliyo guddigaa xeer ka soo saaraya sida loola dhaqmaayo marka xisbiyada waaya marka sharciga xisbiyada marka loo baahnaanaya in baarlamaanka iyo meelahaas amendmentigaas ma aha isagoo dhan in lagala hadlaayo qodobadiyaa loo qoray qodobadaasay amend garaynayaan ay ogolaanayaan kadibna soo ogolaanayaan kadib ay ogolaanayaan saas marka sharciga xisbiyada waa sharci jira oo lagu shaqeeyo keliya meelahaasaa laga taataa sharciga intii la sameynayay waxaa la sameeyey la tashiyaal aada iyo aada u badan oo ay ku jiraan dowlad goboleedyadu mar waxaan xusuustaa sharci yaqaanadii dowlad goboleedyada oo dhan laga keenay halkan lasugu keenay oo ay qodob u qaateen waxaanu kaloo la tashanay xisbiyadii oo qodob u qaatay oo talooyinkoodii lagu soo daray bulshada rayidka ah oo qodob u qaatay talooyinkoodii lagu soo daray marka sharciganu marka wuxuu ka kooban yahay talooyinkii iyo aaraadii ummadda soomaaliyeed oo dhan uu ka kooban yahay
waxa hadda ansixiyey oo golaha wasiiraduna waa dad wasiiro gole wasiiro oo wadankii oo dhan matalaya imo baarlamaanku markuu ansixiyana sidaasoo kale baarlamaanku wadankii oo dhan matalaya waayahay intaana ka bixin waxaan rabaa dowlad goboleedyada waxay soo saareen war saxaafadeedyo oo ay ku diidayaan sharciga dhammaantiisa aan ahayn laakiin qodobo ku jira sharciga maxaa ku jira sharciga ama adag ama ay ka disan yihiin oo u muuqda dowlad goboleedyada aad is leedihiin war saxaafadeedooda markii aad fiirisid in qodobo gaar ah xataa nidaamkan qodobka ku toban nidaamka doorashada tilmaamooyin ay ka bixinayeen maxay yihiin waxa adag ee ku jira qodobada ay sheegayaan waxaa suurtagala ma aan arag horta saxaafadooda waxaa suurtagala inay ka hadlayaan degaan doorashada way leeyihiin degaan doorasho sidii kismaayo mar lagu shiray ay ka soo saareen degaan doorashada waxaan rabnaa inay ku salaysnaato dowlad goboleed markaan waxaan idhahdaa ceesaan weydiiskeeda qofkii kugu dhiba wadisteedaa lagu dhibaa dowlad goboleed sooma rabtid intaan oo dhiba soo xalli 275 qaybi miyaa la siyaadinaya kuraasta dastuuri weeye waa 275 qaybi somaliland arrinteeda go-aan ka gaar banaadir go-aan ka gaar xalli ma og tahay xuduudada laysku haysto waxaasoo dhan barakacayaasha ka hadal waxaasoo dhan markaad xalliso laakiin taas dowlad goboleedyada inaan lahayn dowladda federaalka soo lagama rabo tallaabooyinkaas inay qaado hadda midda ku aadan midda ku aadan hadda arrinta maqaamka muqdisho waa ku soo celisay waa ka hadashay amniga taas qaranka oo dhan soo kama dhexayso oo dowlad goboleedyada ay ku jiraan waa ka dhexaysaa laakiin hadda doorashadan 2020 waa inaga 4.5 nidaamkaas lagu soo jiray nidaam wuxuu ahaa loogu talagalay si ku meel gaar ah looguma talagelin inuu socdo dhowr iyo 10 sano waxa weeye si looga baxo iska daa'iradan wareegan si looga baxo waa in dalku mar uu nidaam doorasho ah galaa nidaamka doorashada ah dad baa waxay leeyihiin hal mar lagama wada bixi karo 4.5 marka nidaamka arrintaa xadidaya waxa weeye liiska markuu soo sameynayo xisbiyadu soo sameysanayaan liiska waxay ku saleynayaan xisbi kasta gobollada iyo bulshada gobollada iyo dadweynaha liiskaas ayaa markaa la dooranaya waxaa kaloo muhiim ah oo dadku aanay la socon kursiga waxaa iska leh xisbiga iska leh marka waxa baarlamaankan soo socda oo 2020 doorashada ku imaanaya wuxuu noqonayaa baarlamaan nidaam leh oo kala dambeyn leh sababta waxa weeye haddii qofka xisbiga ku jira uu ka codeeyo ama uu keeno wax oo la yimaado siyaasad ka duwan siyaasadda xisbigiisa ama xisbigeeda waa ka baxaya baarlamaanka sababta waxa weeye nidaamka discipline meel kastana way ka jirtaa adduunka wadamo badan bay ka jirtaa xisbiga nidaamkiisa iyo go-aamadiisa uu soo saaro haddaa ka codaysid xisbiga waa ka baxaya marka waxaa abuurmaya dad isku xiran oo isku siyaasada oo isku xisbi ah oo aan ka fekerayn berri miyaa mooshin lagaa keenaya see wax oo u shaqaynaya mataqaanaa dalkii hal u shaqaynaya marka waxaan u malaynayaa nidaamkaas degaan doorasho baa su-aala laga qabaa arrintaasna horaa looga jawaabay iyadoo saxiixan bay taallaa oo quraan la saxiixay oo weliba guddiga lagu amrayo guddiga doorashada iyo madaxda dowladda ay ku amrayaan oo leeyahay dhaqsaha loo hirgeliyo nidaamka oo nidaamkii BR closed listiga iyo dalka oo dhan oo ah degaan doorasho 225 marka wixii hore oo la go-aamiyey haddii la leeyahay misalan dib ha loogu noqdo waa su-aal kale iyaguna madaxda siyaasadda gudoomiyaha guddiga doorashada gudoomiye waqtiga ama teeramka hadda socda 2 sano dabcan harsan 2 sano oo hadda sharciga laftigiisii u baahan in wada ogol lagu keeno oo lagu soo wada heshiiyo iyo sidoo kale guddiga oo horyaaleen howlo adag diiwaangelinta waxyaabo badan oo mataqaana marka rajadiina ku aadan in ay mataqaanaa howlahan oo dhan kusoo dhammaan karaan labada sano ee hadda harsan ma idiin muuqata horta ummadda soomaaliyeed sidaan ka arkay gaar ahaan shacbiga ma aha shacbigu waa rabaa doorasho inay dhacdo laakiin siyaasiyiinta sidaan ka arkay cabsi weyn ah ku jirto oo doorashada laga cabsanayo
waana wax muxuu ah iska caadiya oo bini aadan ku jirto wixii ku cusub inay ka cabsadaan oo macquula cuntada xataa waxa aadan aqoonin xoogaa waxaa leedahay ma cuni karaa waxaan shakiya kaa galaya doorasho 2016 27 Julaay anaka nala dhaariyay wax yar kadib maalmo kadib dowladdii markaas jirtay prime ministerka wuxuu yiri doorasho lama qaban karo asagoo wax sax ah ku sababeynaya ma ahayn inuu doorasho diidayo laakiin wuxuu ku sababeynaya wuxuu yiri hababkii aan ku gali lahayn doorasho awoodii aan doorasho ku gali lahayn ma jirto waxba nooma diyaarsan guddigii oo xataa furaha ahaa shalayaan la sameeyey muxuu ah sharcigii doorashada ma hayno kii xisbiyada xataa markaas lama haynin wax sharciya lama haynin sidaa darteed maadaama aanan doorasho geli karin hab kaleetaan sameynaynaa aan doorashada aan u gelaynaa waa tii ay madaxda qaranka intay isu timid habka la keenay inkastoo sharciga uu ahaa oo nidaamku ahaa haddii doorasho la bedelayo iyo habkii lagu aadayo baarlamaanka inuu keenay inuu ahaa sababtoo ah baarlamaanka waa dadkii la doortay oo loo doortay inay sharci dejinta sameeyaan wadankan sharcigana ay ku hagaan ay go-aanka hadda justification ma jiro haddii la yiraahdo 2 bilood 3 bilood gudahood doorashaha lagu qabto waa la qaban karaa maxaa yeelay guddiga 3 sano soo jiray sanadka afraad ku jira 4 sano wuxuu ka shaqeynayay sidii doorasho loo qaban lahaa ma aha arrimaha siyaasadda ma aha in wax lagu soo heshiiyo sidii doorasho loo qaban lahaa diyaar u yahay uu qaban karaa waqtiga u harana waqti ku filan waay haddii loo fasaxo howlaha sharciga doorashooyinka waxa kaliya waxa hakin kara waa sharcigaas doorashooyinka hakin kara haddii loo fasaxo waxaana waaye ilaa 2000 aan nidaam aan adduunka ka jirin oon hore ugu socon weyne dad curyaansanaanahay dad baaba'sanaanahay 90% gacan dad kale aan ku noolnahay gacanteena iyo xooggeena waxaan kusoo saaranay oo wadana aan ku dhisanahay kuma noolin haddii marka aan intaan sida adduunka uu u socon weyno oo doorasho aan geli weyno oo dadweynaha awoodda lagu celin waayo oo aan intaan ku jirno waxay ahaanaysaa in ay sii dheeraato ayna sii xoogaysato kala qoqobka iyo kala qaybsanaanta ummadda Soomaaliyeed aad u mahadsan tahay dhinaca taleefanada rabnaa inaan dadweynaha markooda siino haddii su'aalo qabaan ama talooyin in ay si toos ah noo weydiiyaan ama ay nala soo wadaagaan dadweynaha taleefanada soo galaya waxaan ka codsanayaa in mataqaanaa iska ilaaliyaan in shaashadda ay nagala socdaan laakiin link ay si toos nagala socdaan waxaan rabaa in daawadaha ugu horeeya aan siiyo ee qadka ku jira halow fadlan linka igala soco walaal haddii aad maqasho soo dhawow magacaaga iyo halkaad naga soo wacdo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacayga waxaa la dhahaa safiya soo dhawow walaal xaggee joogtaa waxaan joogaa buu London waxa igu gaaban codkaaga waaya injineerada waxaa ka codsanaya in codka ay kor noogu qaadaan waaya safiya haddii aadna maqasho barnaamijka haddii aad la socotay toos u gal barnaamijkiina ula socdaa maasha allah waa barnaamij aada u wanaagsan waxaan rabaa wax yar oo fikradeyda inaan ku biirsado waxaan salaamayaa horta dhammaantiin waan salaamayaa si gaar waxaan salaamayaa Xaliim Yarey oo hawl badan qabatay waxaan rabaa inaan abo ku darsado wax hal idea ku darsanaya waxa waaye wadanka weli wuxuu ku jiraa maaragtay xaalad oon maaragtay aan fiicnayn laakiin haddii wax xataa la abuuro waxay ka fiican tahay wax la-aan marka aniga waxaan ku darsan lahaa waa in Soomaaliya la yiraahdaa markii wax la dooranayo ama baarlamaan hala doorto maaragtay madaxweyne in laga soo saaro qodob lacagta laaluushka oo la siiyo dadka maalin walba hal dhinac soo noqonaya wuxuu u soo noqonayaa wuxuu haystaa lacag oo maaragtay uu meesha ka sameeyey marka buqligiisa weligiis la joogaya dadkii kale ma helayaan time ay ku galaan doorashada marka waxaan dhihi lahaa
ha laga soo saaro 5 sano xabsiya ama ganaax ninkii lagu qabto inuu dhiibaayo lacag marka taasaan rabaa inaan ku darsado. safiya aad baad u mahadsan tahay fakarkaaga ama talada aad soo jeedisay guddiga doorashooyinka. dhinaca kale taleefanka kale ku jira waayahay talada safiya soo jeedisay waxaa ku bilaabay ustaad cali waxay leedahay macnaha anshax marinta ha ku jirto doorashooyinka in wax oo musuqmaasuqa in haddii lagu helo xisbigaas ama qofka doorashada ka qaybgalaya maxaa qabanaya horta waxa weeye sharcigii weli guddiga sooma gaarin oo kama hadli karo xaaladihiisa waxaa suurtooda baarlamaanka markuu tago wax laga bedelo laakiin sida la filayo caadada ah waxaa la sameynayaa xeer hoosaadyaa la sameynayaa maalan sidee xisbiyadu nidaam bay leeyihiin dad baa waxay weydiiyaan 50 xisbi baa ilaa hadda isdiiwaan geliyey ma sidii 68 baad rabtaan inaad marka 50kan xisbi waxa weeye ku meel gaar rasmi markay noqdaan waxaa jira shuruudo sida hadda gudoomiyuhu u sheegtay waa inay 18 gobol oo 9 gobol oo ka mid ah 8 gobol oo 91 waa inay xafiis ku leeyihiin waa inay 10 kun oo cod bixiye ay haystaan inta xataa markii laga yimaado sharciga waxaa ku taala xisbigii waaya 7% in ka yar codadka 7% inuusan baarlamaanka gelayn 7% oo u dhiganta 19 kursi 19 kursi ka yar haddii aad hesho ama 7% xisbiyada hela codadkooda waxaa loo qaybinayaa xisbiyadii guuleystay oo codadka badan helay marka waxaa loogu qaybinayaa si oo proportional loogu qaybinayaa si siman kii 50% helay codadkan haray 50% buu helay marka markasta waxaa jiraysa nidaam lagu kontrolo oo sharciguna waa sheegaya waxaa jira ciqaabaad jira waxaa jira waxyaabo qofku haddii lagu helo uu dambi ku mutaysanayo waxaasoo dhan baa jira laakiin waxaas waxaa si fiican loo faahfaahin doonaa oo xeer hoosaadida lagu faahfaahin doonaa marka sharcigu soo baxo insha allah. gudoomiye xisbiyaad diiwaan geliseen dabcan xisbiyadaas waxaan u maleynayaa kumeel gaar inay si hab kumeel gaar ah u diiwaan geliseen xisbiyada laftigooda si ay howlahooda u wataan nidaamkaas goormay ka bixi doonaan tallaabooyinka xigta ee diiwaan gelinta ama inay kumeel gaar ka baxaan maxay noqonaysaa? safiya laaluushka wuxuu ku yaraan karaa laaluushka waxa badiyey waxa waa koox yar oo meel lagu xareeyay oo la yaqaano oo tiro yar ah oo lacag la siiyo lacag badan weliba la siiyo wixii aan ka soo marnayna doorashadii dhoweed waa la ogaa waa la yaqaanaa dadkii waa koox yar waa dad la awoodi karo in lacag la siiyo laakiin doorashadu markay qof iyo cod noqoto dadka lacag lama kala gaaro xisbiyadu siyaabo kale u bixin doonaan lacag ma haraan waa helayaan nidaam ay lacag ku bixiyaan laakiin ma noqonayso nidaam laaluush oo qof inta lacag la siiyo laakiin waxay noqonayaan inay deegaankaas tagaan inay deegaankaas wax ka sameeyaan inay xisbigaas maalgeliyaan si kale lacagta uga bixi doontaa oo waxtar leh ee uga bixi doontaa laakiinse qofkii way yaraan doontaa oo laaluushka la siinayo maxaa yeelay malaayiin qof lama kala gaaro in oo laaluush la siiyo marka inaan doorasho qof iyo coda gaarno taasay ku fiican tahay inaan xayirnaanana 30 sano waaye hadda intaan soo xayirannahay oon leenahay berri tallaabo aan qaadayna geesinimo inaan yeelano oon tallaabo qaadana xisbiyada waxay uga bixi karaan sharciga xisbiyadaa sheegaya siday uga bixi karaan oo qori inay intii hadda cali soo sheegaya inay gobolladii iska soo diiwaan geliyaan inay codbixiyayaal helaan inay muxuu ahay shuruucdoodii habeeyaan in ay arrimahaas oo dhan way yaqaanaan waa u qoran tahay waanu ku socdaan hadda dariiqooda inay ka baxaan xisbiga waxaa diiwaangelinta ay ka istaagaysaa 5 bilood markay ka dhiman tahay doorashada hadduu xisbiga isu soo dhammaystirin 5 bilood ka hor doorashada ma la diiwaangelinayo waa diiwaangashanaanaya waa jiraya laakiin doorashadaas kama qayb galaya waayahay dhinaca taleefonka rabaa inaan ku laabto daawadaha ku jira qadka halo السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ولا سoo dhawo magacaaga halka naga soo wacday magacaygu waa Yuusuf Sheekh Maxamed oo jooga dalka Koonfur Afrika. Yuusuf soo dhawo waan dhawahay Faysal oo salaamaya gudoomiyaha
guddiga doorashooyinka iyo waa salaamaha dhammaantood iyagana su-aashaan raba inaan weydiiye waxay tahay mar haddii sharcigii doorashooyinka iyo xisbiyada la ansixiyey golaha wasiirada ay meel mariyeen baarlamaanka ay u harsan tahay hadduu isagana meel mariyo ma waxaad u xayrnaanaysaan in al-shabaab goobaha haystaan laga kiciyo iyo wadahadalada somalilan in soomaaliya la dhamaystiro mise la-aantood waad qaban kartaan doorasho su-aashaas ayaan weydiin lahaa aad baad umahadsan tahay waayahay yuusuf oo koonfur africa yuusuf waa salaaman tahay haddii aan su-aashaas ka jawaab su-aashaas markii hore cali noo kala dhigdhigay sababta loo yiri doorashadu ha noqoto deegaan doorasho soomaaliya oo dhan hala dhigo kuraasta waxaa waaye meelaha uu shabaabka haysto si looga maarmo wadahadalada somalilan inaan la sugin ee somalilan dadka doorashadan galaya ee xisbiyada ka mid noqdaan doorashaduna ay soomaaliya oo dhan wada gasho waa midda uu siduu hadda cali noogu micneynayo loo arkay bal markaan ugu horeysa way isbabedeli doontaa doorashadaani markaan ugu horeysa bal doorashada inaan saas ku galno oo soomaaliya oo dhan ay saas ku gasho oon loo hakanin meel shabaab haysto oon loo hakanin IDB dhulkooda aan joogin barakacyaal meel ay ka yimaadeen aan joogin meel kale joogo oon loo hakanin xuduudo laysku haysto sida gaalkacyo oo kaleeto sida sool iyo sanaag oo kaleeto inaan loo hakanin ee qofka soomaaliga meel kasta uu ka joogo soomaaliya inuu oo laga diiwaan geliyo inuu codkiisa ku baxsado waaya liiska xisbiyadu soo gudubsanaya ayaa reer somalilan ku jiraan meeshii shabaab dadkii degmooyinka shabaab haystaan dadkoodu ku jiraan meel kasta liiskaanu waa liis soomaaliya oo dhan hal xisbi xataa haddii la doorto soomaaliya oo dhan doorato halkaa xisbi wuxuu ka kooban yahay soomaaliya oo dhan waayahay waxaan rabaa ustaad cali inaan ku weydiiyo ma waxaa jira wax kale oo doorashooyinka ku xiran ama doorashada ku xiran oo heshiisyo u baahan miyaa jira marka sharciga laga nidaamkan hadda sharciguna sheegayo odayaasha siyaasiyiintuna isku raaceen wax kale uma baahan wuxuu u baahan yahay sharcigan in la dhammaystiro guddigu diiwaangelinta ay soo sameeyaan meeshii laga diiwaangelin karo dadka goobihii laga codeynayay la soo cayimo maalintii codbixinta la yidhaahdo maalintaasaa la cod bixinayaana doorasho loo dareerayaana doorashada loo dareero wax kale loo baahan yahay heshiis looma baahan wax loo baahan yahay waayahay annagoo qeybaha dambe guud ahaan laakiin ani cali waxaan uga duwanahay guud ahaan wax kasta oo ay ummadda ku dhaqmayso way u baahan tahay in laga wada hadlo layska dhaadhiciyo meel laysla maro iyadoo la wada rabana la wada fuliyo wada hadal la-aan iyo heshiis la-aan iyo wada socod la-aan meel wax kuma tagaan xagga kale istaagno waxaa waaye ereygii aan baarlamaanka hortiisa ka dhahay ummad kala maqan oo isku maqan laguna maqan yahaan noqonaynaa aad aan u kala qaybsamayno waayahay guddoomiye adoo mahadsan hadda garowe shir baa ka furmi doona oo madaxda dowladda dhexe ee federaalka iyo dowlad goboleedyada isku tegi doonaan arrintan laftigeeda hadda hadalkaana waa ku jirto in laga sii wada hadlo weli ma laga yaabaa mase ku jirtaa arrinta sharciga doorashadaba inay ka hadlaan wallaahi anaka ma arkin ajandahooda barnaamijka ay ka hadli doonaana ma ogin waxaa farxadna gelisa inay isu imaanayaan ay meel ku wada imaanayaan waana hubaa hadday wada yimaadaan inay ka talin doonaan soomaali danaheeda inay ka talin doonaan waan ku boorinaynaa inay soomaali danahooda ka taliyaan soomaali meel xunay taagan tahay waa soo kici la-nahay 30 sano nala kaalmeynayo nala dhisaayo waxna lagu taraayo 30kaas sano yuu naga noqonin 30 sano oo khasaare odayaashaasna ayagaa mas-uuliyaddaas iskale waayahay marka ugu dambeysa ustaad cali maxaa ku talinaysaan wadanka soomaali markaad fiirisid waa isku raacsan tahay in doorasho dalka ka dhacdo nooc lagu heshiiyaba ha ahaatee iyadoo dadka ugu sii jecel yihiin doorasho qof iyo cod inay ka dhacdo marka talooyinka aad bixinaysaan haddii tahay shacbiga haddii yihiin xisbiyada siyaasadda maxaad ku talinaysaa iyo madaxda mataqaanaa dowladda federaalka ah anigu waxay la tahay nidaamkan doorasho oo sharciga ku yaala oo xisbiyadu waafaqeen oo ururada bulshadu waafaqeen oo talooyin ay ka dhiibteen dowlad goboleedyada dadka oo dhan laga talageliyey in isagu uu noqdo sal haddii su-aalo kale ay yimaadaanna laga wada hadlo
oo wixii markaa meel laysla dhigi karo laysla dhigo laakiin nidaamkaas ayaa sal u ah nidaamkaas la yidhaahdo doorashada saamiga simanna waa midka keliya oo hadda aynu qaadan karno wey marka doorasho la-aana ma dhici karto waxaan xusuustaa oo guddoomiye ii sheegaysay guddigu marbay kormeer ku tageen gobollada oo dhan gobol kasta dowlad goboleed kasta 4 degmo way tageen dadku 100% doorasho rabaan maaha 99 100% dadku doorasho rabaan dadku waxay ka daaleen musuqmaasuq iyo kursi la gadanayo iyo dhibaato waana ceeb in Soomaaliya ay sanad kasta la yiraahdo musuqmaasuqa waxay ku jirtaa liiska ugu hooseeya inagu ah dad qiimo leh oo fiican oo hal qowmiyada marka dariiqa kaliya oo looga bixi karaa waxa weeye nidaamkaas doorasho oo sharciga ku yaala iyo nidaamka deegaan doorasho oo dalka oo dhan kuraasta la dhigo 225 la dhigo dalka oo dhan waxaan kale waxay keenayaan isqabqabsi iyo arrimo kale iyo waxa suurtooda doorasho inay dib looga dhigaan marka intaasaan waaya guddoomiye haye adiguna talooyinka jeedinaysa maxay hadda madaxda laftigeedu waa isku tagaysaa talooyinkiina guddiga doorashooyinka ee dhinaca doorashada ku aad aniga horta talada ugu weyn oo ummadda Soomaaliyeed ama muxuu ahaa mas'uuliyiinta qaranka ha noqoto dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada ha noqoto odayaasheena dhaqanka ha noqoto culimada ha noqoto shacab weynaha ururada bulshada kulli ha noqoto dardaaranka aan siinaa waxay tahay Soomaaliya intay meel iskugu tagtay ay dastuur samaysatay ku meel gaar ah waa dhici kartaa dastuurkeenaas inuu meelo badan ka qaldaya barkee waxay ahayd dowlad burburtaa ahayn isu imaanayna federaal aanan ahaan jirin aan qaadano oon ku heshiino federaal inaan nahay dastuurkaa dhigayo waa ku heshiino waa inaan ilaalinaa inaan federaal nahay ilaa afti laga gaaraya yiri waa inaan saas u ilaalinaa saan kaas u ilaalinayno federaalka aan ilaalinayno dastuurka ku dhigan yahay saan kaas u ilaalinayno wax kasta oo maanta dastuurka noogu dhigan waa inaan ilaalinaa dastuurkeena wuxuu leeyahay wadankan waa inuu doorasho hal qof hal cod oo xisbiyo badan oo siyaasadeed uu aadaa uu leeyahay dastuurkaneeto dastuurka marka inaan fulino waay siduu noole waa in doorashadaas la aadaa doorashana anigu malihi maanta doorasho haddii doorasho la galo 100% nabaday keenay ama 100% dagaalay keenay marba dhinacay ay u badan kartaa laakiin way aragnimada sida la haysto doorashadu waxay u badan tahay inay wanaaga keento doorashadu waxay u badan tahay inay maamul fiican keento maamul xun waa keeni kartaa doorashadu waxay u badan tahay in muxuu ahaa dadku waxay rabeen inay doortaan ee ah qof aan loo soo fariisinin inaan qof loo soo fariisinin aysan ayagu rabitaankooda ku imaanin marka waxaan ku boorinayaa madaxda qaranka iyo ummadda Soomaaliyeed especially madaxda qaranka inay wada fadhiistaan ummadda Soomaaliyeed u daneeyaan dastuurkii Soomaaliya ay wada qorateen ay u daneeyaan sharciyada iyo nidaamka loo dejinayo dastuurka qeexaya asaga bal inay furaan ay fiiriyaan habkeen dastuur sharci u degsanaa habkeen u dhaqaaqnaa habkeen ciidan u sab muxuuna leeyahay dastuurkeena maxaan ku heshiinay geedkaas lagu heshiiyey in la raaco intaasaan kula talinaa aad baad mahadsantihiin guddoomiyaha guddiga madax bannaan ee doorashooyinka qaranka xalin Ismaaciil Ibraahim Xalim Yaray iyo Ustaad Cali Maxamed Maxamuud oo ah la taliyaha dhinaca sharciga ee guddiga madax bannaan ee doorashooyinka qaranka aad baan ugu mahadcelinayaa barnaamijka aad igala qayb gasheen barnaamijkeennii kulanka toddobaadkan halkaa baan kusoo gabagabeynayna